arrinta shanaad ee ugu muhiimsan ee ugu dambaysa qabta dhanka shaqaaluhu waxa weeye speak up mararka qaarkood sare u hadal oo waxaa laga wadaa xaqaagii haddii lagu xadgudbayo ama shaqaalaha qaarkood ama maamulka qaarkood ay kugu tumanayaan ama lagu yahaanaysanaya ha aamusin waa inaa hadashaa laakiin hadalkaas waa inuu noqonin hadal cunfiya isaga ah oo dee haddii masalan lagu geystay intan aduguna inaadan geysanin wax intan la eego kale laakiin be professional always micnaheeda maaha inaad aamusnaatid qarsatid waxaadii lagugu xadgudbo lagugu tutunto maaha mar waliba waxaa u baahantay inaad sare u hadashid inaad geesi noqotid oo aad sheegtid waxaadii ma sahlano waa fahamsanaa anugu muddadii aan soo shaqaynaya dad fara badan oo waxaan arkay victim u ah shaqadii ay joogeen why because mishaarkaas sira ayuu ka fikirayaa wuxuu isleeyahay haddaad qabsatid qofkan arrimaha wax kaawin kaaga yimaadaan oo kale isaga dulqaada inta badan dulqaadku wuxuu leeyahay limits iyo xadow leeyahay tawaaduc waa loo baahan yahay laakiin taas tawaaduc maaha timidity wey fulaynimo wey fulaynimada iyo tawaaducu marna ha isku qaldan dadku inta badan waxay leeyihiin hadduu qofka waxaa maqlisa dadka waxaa ku dhiirigelinaysaa inay fawdo sameeyaan ama maya fawdo ma aha no way laakiin waxa weeye qofka inuu fulay noqdo oo uu cabsado oo uu tallaabo qaadi waayo xaqiisii uu sheegan waayo qofkan uu dhihi waayo yab waa soo xadgudubtay istaag xuduudkan kayga wey ha dhihin ereyada noocaasoo kale ma jecli ha ii isticmaalin caafimaad ayaa ku jira shirkaddan caafimaad ayaa ugu jira adiga shakhsiyana caafimaad ayaa kugu jira marka meel waliba lama huraan ay noqoto speak up sare u hadal sheeg qofkii markaad hadlaysid waxyaabaad samayn kartid waxaa ka mid intaada maamulkii la wadaagin oo aad cabashadaada gudbinin qofka arintayda kala dhaxayso gaarka aan la fariiso u yeedh la fariiso waxaad tiraahdaa aniga 1 2 3 4 5 ayaa jira arrimahaasaan kugu haystaa ereyada satarada isticmaashay aniga munaasib maaha ayaan dhaxas emailkaas iga qortay sax ma ahayn reportka noocaas markaa presentation sameynaysaa saatiri yani concrete things ka qofka aad ku haystid la wadaag maybe inuu dareemo oo qofkaasi muxuu ahaa isha uu kaa leexdo amaba waxaa suuragal ah inuu kasii qaado urur iyo muxuu ahaa lumid inuu kasii qaadaa suuragala markaas kadib waxaad u baahan tahay inaad elevation samayso sare intaa u qaadid maamulkii sare aad la wadaagtid ama dad kaloo asxaab oo is leedahay waxbuu ka maqlaynaa u sheegtay laakiin aamusnaantu stress bay kugu abuuraysaa anxiety ay maanay dhibaatooyin shaqadaaduna ugu dambeyn waxay noqon doontaa inay ku burburto muddaday doonta ha qaadato way burburi doontaa ugu dambeyn because ma wadi kartid meel stress iyo anxiety iyo muxuu ahaa isha ruuxaaniyaadkaaga ay kacsaneen waxba ma qaban kartid goordhow performancegaaga hoos u dhici doona performancegaaga hoos markuu u dhaco logaadana cid ogma laha ogow inaa stress u ku hayo cid ogma la ogow in lagugu tutunto laakiin maamulku muxuu dhihi doonaa master ekis ama cali cabdiwahaab performancegiisa aad u liitaa sidaa darteed lacagtii laga jarayaa sidaa darteed hoosaa loo dhigayaa lacagtii lagaa jiro hoosna lagu dhiga maxaa sugaysaa boom waa u dhammaatay niyadjabkaaga aad u badanayaa ugu dambeyn waad xanuunsanaysaa shaqadiina waa inaad ka tagtaa maxaa kaaga fiican marka speak up sare u hadal la wadaag qofkaasi kadibna soo geli dadkii munaasabka ah qodobadan waxaan rabaa in shaqaaluhu ay uga faa'iidaystaan fahamka aagga ay ka shaqaynayaan wuxuu noqon karaa xafiis siyaasadeed wuxuu noqon karaa xafiis shirkadeedu noqon karaa ama wuxuu noqon karaa dad meel isugu yimid group team whatever hay-ad wuxuu doono ka shaqayso every entity oo meel ka jirta dadka isugu yimaada mar waliba waxaa jira danooyin tiro badan oo competing oo wada tartamaya qasab waxaa ah in la isqawaafaqi karo qof waliba qofka kalena inuu caawiyo ugu dambeyntii ha xadgudbin marna adiga balse adiguna ha u ogolaanin in lagu xadgudbo qaybta dambe waxaan ku eegi doonaa bal maamulka tallaabooyinka ay tahay inuu qaado sidii office politicska oo isaga laftigiis qayb uga noqon lahaa toosinteeda iyo noocyada kala duwan ee siyaasiyiinta ku dhex nool shirkadaha iyo xafiisyada dhexdooda